kulanti wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada Sama TV maalintu waa sabti saacaduna waa 3:00 galabnimo telefishinkuna waa Sama TV waa markii aad uga barateen barnaamijyadii live-ka ahaa ee aalaba idinka bixi jiray haddaba Sama TV oo maanta idin wada barnaamij cusub barnaamijkaas oo maanta bilowday waxaanan ugu magac darnay barnaamijkaas Hello Minneapolis barnaamijkaas oo ku bixi doona waxyaabo kala duwan waliba dhinaca fanka ayuu culayska saari doona barnaamijkan oo aanu ku sii deyn doono barnaamijka hambaliyada salaamaha aroosyada dhalashada cid allaala cidii u baahan in ay cid u hambaliyeyso barnaamijkan Sama TV ay soo diyaarisay ee ah Hello Minneapolis ayay la soo xiriiri kartaa haddaba Sama TV xagee baad kala socon kartaa haddii aad ka baxsan tahay gobolka Minnesota ama USA waxaad kala socon kartaa waa Somali American Media.org waxaad click siinaysaa qaybteeda live streamka ah waxaad kala socon kartaa barnaamijyada sida tooska uga baxaya ayagoo maqal iyo muuqaala haddaba barnaamijka waxaad sidoo kale kala socon kartaa Facebook aanu caalamka ku leenahay oo ah facebook.com/Sama TV kula soo xiriir Sama TV Facebook saaxiib kula noqo kuna soo gudbi fikradaada barnaamijkan Hello Minneapolisna si toos ayaad uga qayb qaadan kartaa Hello Minneapolis waa mar kale anigu caawila ayaa idin la barnaamijkan maantay ku soo dhawaada Hello Minneapolis barnaamijkan oo uu marti noogu yahay fanaanka da'da yar ee Mahad Indhadeero waa xidigaha gobolka Minnesota USA diyaar u yahay barnaamijkan Hello Minneapolis qaybtiisii ugu horeysay inuu ka qayb qaato waxaanu ku furaynaa Mahad Indhadeero haddaba daawadayaal looma kala maqna Mahad oo isagu waliba noo soo diyaariyay hees aad u macaan heesaas aad kala socon kartaan Sama TV waraysiga kadib barnaamijka waxaan rabaa in aan ku bilaabo maantay gabar yar oo iyadu maantay da'deedu gaartay 6 sano waxaana halkan uga hambalyeynaya Ruwaydo Axmed Shire iyo Istiqaal Axmed Shire Hamza Axmed Shire Hibo Jallow King Jallow Muumin Jallow dhammaan Ubax Ali Yusuf iyo Jallow waxa ay halkan tahniyad uga dirayaan iyo King Ali Yusuf Najma Cabdiqani dhammaantood waxay hambalyadan u dirayaan iyo tahniyada dhalashada ah waa Nasiiro Cabdiqani oo iyadu la xdirsatay maantay waxaanu leenahay Nasiiro soo barbaar soo kor ayaanu ku leenahay aniga iyo bahda Sama TV ba waliba Nasiiro waan u hambalyeynaa barnaamijka waxaan kaloo halkan uga hambalyeynaa iyadana isla tahniyad dhalasho waa ay badan yihiin dadku daawadayaal halse looma kala maqnay heesihi ayaa iyaguna noogu xigi doona ugu horeyn aan ku bilaabo hooyo Khadiijo Idris Ahmed Maxamed Mira Xaaji Saciid Maxamuud Mira Xaaji Saciid Ali Faarax Xaaji Saciid Anis Ahmed Idris iyo Maxamuud Xaaji Cabdullaahi Beeldaaje Liibaan Xaaji Cabdullaahi Beeldaaje ayaan le Saalax Maxamuud Xabiibe Xaaji Saciid Maxamed Mire Xaaji Saciid iyo Mahad Mira Xaaji Saciid iyo Caashe Maxamed Mire Haweeye Mira Xaaji Saciid Mira Xaaji Saciid iyo anigu Caawil Nuur Shire ayaa waliba tahniyadan diraya waa Jamiila Mira Xaaji Saciid iyo Luqmaan Bashiir Ismaaciil Ayuub Bashiir Ismaaciil iyo Jamiila Axmed Idris waxa ay halkan daawadayaal tahniyad dhalasho uga dirayaan hooyo Axmed Idris Cumar iyo Ismaaciil Mira Xaaji Saciid oo gabar ugu dhalatay bishii hadda la soo dhaafay 31 2012 gabadhaas oo lagu magac daray Raxiima waxaanu leenahay soo barbaar dhammaan bahda Sama TV waa Maxamed Cali waa Cabdikariin waa Ismaaciil waa Timir iyo Mahad Indhadeero maanta barnaamijka Hello Minneapolis laftigiisuba marti kuwa ayaa u hambalyeynaya raxiiqa waxaanu ku leenahay soo barbaar daawadayaal barnaamijkan oo bilow amaantay waxa uu ka bixi doonaa Sama TV waxaad soo wici kartaa haddii ay jirto cid aad u hambalyeynayso ama aad tahniyad aroos u dirayso ama dhalasho telefonka lambarkiisu yahay oo aad shaashada ka aragto waa 7460553 Sama TV team ayaa si toos ah kaaga qaban doona waa barnaamijkii aan guda galno iyo qaybihii nooga haray Mahad Indhadeero oo fanaankeenna ah oo maanta diyaar noogu ah inuu Sama TV barnaamijkan u furo Mahad Indhadeero ku soo dhow barnaamijka Sama TV ee Hello maanta ka baxaya aad baad u mahadsantahay waxaan runtii halkan ka salaamayaa dhammaan Sama TV Caawil adiga shaqada qiimaha leh oo aad wadaan waxaan idin leeyahay halka ka sii wada Mahad waad mahadsantahay Mahad ugu horeyn barnaamijkan Hello Minneapolis oo ay Sama TV soo diyaarisay oo ay ugu talagashay dadka reer Minneapolis oo adigu waliba maanta aad xariga ka jibisay sida ayaad u aragtaa wallahi waxaan u arkaa arrin aad u wanaagsan oo horumar leh taasina waxay keenaysaa in la isla socodsiiyo hambalyooyinka oo ah waana barnaamij hore u jiray laakiin ka maqnaa magaalooyinkan mataanaha laakiin magaca uu wato ka waran iyo Hello Minneapolis barnaamijkan wuxuu jiray Hello Minneapolis magaca idinku aad u bixiseen maahane magacyo kale lahaa
magacyo kululaha ilaa iyo wadankii waa barnaamij wargaarsiin ah oo labadii isguursatay iyo caruurta dhalatay iyo wixii farxad leh waana wax wanaagsan weeye waa tahay waad ku mahadsan tahay sida aad barnaamijka noogu furtay maanta mahadin nadeero bal adigu waxaad tahay fanaan weliba fanaaniinta aad looga qiimeeyo dalkan Mareykanka waa mahadsan tahay wadanku intuu burburayna dhalinyaradii halkan soo gashay adoo kamid ah qurba joogtay oo fanka gacanta ku hayay waa mahadsan tahay aad baa ma hado fanku ma dhib badan yahay marka la soo galayo wallahi fanku rabo qof inuu bilaabo horto fanku ma dhib badna laakiin waxa go'aanka qofka uu gaaray fakarka ah in uu qofku fanaan noqdo waa wax aad u dhib badan maxaa yeelay bulshada aan ka dhalanay fanku boqolkiiba 30 waxay boqolkiiba 70 waxay u arkaan waxaan wanaagsaneyn fanka waa wax cusub oo nagu soo kordhay inkastoo suugaantu ay tahay sidaan hore u sheegay fanaanku waa macallin ka mid ah macallimiinta waana wax dhib badan fanku gadaal dambe waxaad moodaa xogaa inuu iska fududaaday laakiin markii aan ka soo bilaabo North America oo kale raggii bilaabay oo ay ka mid ahayn Cabdijanan iyo Cumar Yare iyo dhalinyaro badan oo fara badan iyo annagoo ka sii dambeynay fanku wuxuu ahaa wax dhib badan maxaa yeelay waxaad fikradda qofku fanku u galo ama annagoo aan u galnay ayaa ka weyn dadku nama wareysan laakiin waa fakar ku salaysan haynta suugaanta Soomaaliyeed okay mahdo adigu waxaad tahay jiilkii dambe jiilba jiil buu bedelay waa runta waxna waa culture ku soo jira bulshada oo marna laga maarmeen sax weey adiga nafsad ahaantaada ka mahad ahaan markii kugu horeysay ee aad fanka bilaabaysay qaabkii aad ku bilowday iyo sababihii aad u gashay ama aad u tiri macnaha macodkaaga ayaad tijaabisay macid baa kugu la talisay maadaa iska soo galay oo diyaar u noqday inaad entertainmentigii aad ka mid noqoto bulshada qayb ka mid ah way kulama aan laga maarmeen والله aad ku soo gashayna maxay ahayd والله horta fanku aniga markii hore Soomaaliya markaan ka hadlo yaraanteedii waxaan ahaa ciyaartoy Soomaaliyeed ciyaarahan kama maqna fanka waa gartay markii aan qurbaha soo galay oo aan halkan imid waxaan saaxiib la ahaa badanaa fanaaniinta Allah u naxariistay Nuur Ebo Cabdijanan Cabdisalaam Jimi dhalinyaro fara badan oo fanaaniina iyagoo waliba talo igu siiyay inaan heeso anigu laakiin xogaa aan ka leexleexanay waa gartay waxaan fanka ku soo biiray taariikhdu markay ahayd 1999 waa 1999 laakiin ka horna waxaan ahaa fanaan qarsoono musqulaha iyo ma hadow waa gartay markii aad ku aad bilowday hees adigu aad qaado heestaasi waxay ahayd ma mid jacayl ku saabsan ma mid ku saabsan aragtida hees aan qaado waxa iigu horeysay horta soo galida fanka aan soo galay iguma horeyn inaan macnaha heestii ugu horeysay oo hees Soomaaliyeed ah oo aan qaado waxaan u maleynayaa inaan qaaday dadku hadda ay maqlaan waxay leeyihiin ninkan ma qasan u jiraa marka daadaada fashilmaysa maya marna kama qabo fakar qaldan daado insha Allah alxamdulillah laakiin waxa ahayd Soomaaliya school baan ka qaaday hees la yiraahdo iyo ku sirin jacaylku iyo sidaa garo inuu yahay sun iyo book sidaa garo laakiin halkan heesihiida markii aanu halkan nimid heesta aanu qaadno haddaanu sheegno waa hees qof kasta qaadi karo laakiin waxaan anagu kaga duwanayn garbahan soo qabanay fanka waa gartay qoloy u sii dhiibtaa garba si aysan u lumin maxaa yeelay wadankan aanu joogno waa wadan westerna waxay leeyihiin culture iyo dhaqan gooni ah waxaan isku daynay in caruurteena ama jiilka cusub ama ummadda Soomaaliyeed aysan marnaba suugaanta aysan lumin oo la sii hayo anagu qaar baa noo arka fanaaniintu inay yihiin laakiin shaqada aan hayno waa shaqo volunteer ah wax lacaga iyo qarash fanku inuu qiimo badan yahay waxaan ku ogaaday marka la dhaho hadda fanaan baa meel ka heesay ama mahado kala caaw meel ka heesay bulshada imaanaysa waxa ay ka badan tahay bulshada arooshada timaada macnaha taas waxay ku cadeynaysaa Soomaha in fanku bulsho badan oo ku xiran ay jiraan at the same time haddana dhinaca kale marka loo fiiriyo waxa tiri dhanka Soomaalida qiimo intee la eg buu kala yahay fanka mahad wallahi awlow horta Soomaalidu waa dadka aan ka dhashay waa dad la gaari kara ma duntoodu waa dad fiican duntooda laakiin influence aad u far badan baa shacabka Soomaaliyeed ku jira
waa gartay oo dhowr meeloodba uga jira dhinac kastaba dhinaca fanka markii aan ka hadlo uma arkaan anigu sida aan ka hadlayo anigu waxaan dhageysan jiray Soomaaliya markaan joogay fanaaniinta Soomaaliyeed heesaha waliba aan dhageysan jiray waxaa ka mid ahaa hees uu qaado Cabdi Xasan Dige oo yiraahdo arday baan ahayo ubixii wadankaan ahay waxaan ku aadi jiray iskuulka waa gartay laakiin hadda waxaa soo baxday qolooyin anigu qofna ma rabo inaan ataago laakiin qolooyin aan leeyahay war ulajeedada ka dambeysa fanka baara oo ogaada faa'iidada uu leeyahayna ogaada maxaa yeelay fanku waa qayb ka mid ah waxbarashada fanaankuna waa macallin ka mid ah macallimiinta waa gartay marka intaa haddii ay dadka fahmaan soo dhaweynta fanaaniinta Soomaaliyeed oo shacabka ay ka helaanna ma wanaagsana markaanu runtii isu sheegno waxaa yeelay hadda waxaad moodaa inaan xogaa sii dhawaanayno oo runta usii dhawaanayno waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed oo iga tala ah in fanaankooda ay soo dhaweeyaan la tashtaan qiimeeyaan qadariyaan inkastoo shacabka Soomaaliyeed dhinaca dhaqaalaha markii la yiraahdo struggle uu ku jiro oo aanu ka warqabno wadankeena marka waxyaalo badan baa looga baahan yahay shacabka fakarkan qaldan oo laga watana waxaan ka jeclaan lahaa in maaragtay wax laga bedelo laakiin fanka waa jecel yihiin dadka Soomaalida ha waxaan anigu ka soo horjeedaa anoo fanaan ah in bulshada kuwa yaryar kuwa waaweyn caruurta iyo maatada aan loo gudbin fanaanku inuusan u gudbin waxyaalo ka xag jira dhaqanka iyo diinta laakiin fanaanka inuu u gudbiyo wax heeso murti ah oo wiil iyo gabar Soomaaliyeed isu keenayo ay isku guursan karaan guri ka dhalan karo ama heeso wadani ah oo dalkeena lagu dhisayo waa gartay oo ay ka mid tahay ka fogaada qabiilka ka fogaada laaluushka waxyaalahaas oo kale laakiin anigu waxaan ka soo horjeedaa fanaaniin haddii ay soo socdaan ama ay jiraan in ay u gudbiyaan waxyaalaha foqsiga ah iyo ma fahmaysa waxaan ku sheegay taasi waa wax qaldan waan aaminsanahay taas waa gartay fanka dhinaca dhalinyarada wadada uu ku hogaaminayo maxay noqon kartaa haddii wiil yar oo dhalinyaro aan weli fanka aan wax aragtiya ka haysan laakiin hees intuu qaaday lagu tilmaamay waa fanaan horta ciladaas way jirtaa laakiin waxa weeye qofku haddii uu waxa uu jecel yahay uu sameeyo waa fanaan laakiin waxa wanaagsan kaas laftigiisa cilada adigu haddaad fanaan tahay haddaad ciyaartooy tahay haddaad mutacalin tahay haddaad wasiir tahay haddaad madaxweyne tahay waxa wax kuu sheegi kara oo kula socodsiin kara shacabka waa sax qofka markuu waxuusan aqoon inta qaado waxaad marka ugu horeyso ogtahay qofkaas inuu jecel yahay fanka waa sax waa fanaan laakiin waxaa loo baahan yahay fakarka iyo meesha uu ka qaldan yahay haddii ay jiraan dad ka waaweyn oo Soomaaliyeed waxaa jirta kelmad la yiraahdo anigu waxaan iraahdaa Soomaalidu waa mid qura waa mataane iyo walaal magacu waa lama huraan macnaha kooda waxay waa hees sangub ii dhiibay hadda ka hor ma qaado marka waa qaaday ha heestu waxay ku jirtaa YouTube laakiin okay ma adu haddaan dhanka uga gudubno fanka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay wallahi inaad macane walaal faa'iidooyinka waxa weeye uu leeyahay fanka waa soo sheegay fanku waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa wax qiimo leh waa messenger waxaa tahay adigu tusaale waxaa tahay macallin fanku waa waxbarasho heestii aan kuu soo qaaday heese kaloo fara badan waxaanu galnay haddaanu ummad Soomaaliyeed nahay marxalado ka fara badan waa sax wadanka mudda waxa lagu fanaaniintu hayeen weligeedna hayeen dawlad naga xoog badan naga awood badan baanu la dagaalanay waxaan xasuustaa in fanaaniintu ay ahaayeen kuwa shaqo ka mid ah xoogga dalka waa gartay oo heesaha ay ku dhiirigeliyaan askarta iyo shacabka Soomaaliyeed inay halkaa ka wadaan halgankooda dheeraadka waa gartay mahdow heesaha adiga kamaad ahaan lagu qiimeeyo ugu qiimaha badan oo adiguna aad jeceshahay dadkuna jecel yihiin wallahi heesaha lagu qiimeeyo waxa kamid ah hees anigu aan lahayn oo laakiin aan si fiican u maleynayo shacabku inay ka heleen oo aan si fiican maaragtay ula helay oo aan macnaha waxaan u maleynayaa heesta maalinta habeenkan duubayayna waxaan wacay fanaankii iska lahaa waxaa ila joogay fanaaniin fara badan waxaa iska lahaa hanuuniye hees la yiraahdo hooyoy macaan
heestaa markii aan habeenkan qaadayna hanuunini waa wacay waxaan ku yidhi heestii baan rabaa inaan qaado hal kalmad buu igu yidhi wuxuu yidhi waa qaadi kartaa laakiin waxaan rabaa inaad si fiican u qaado markii aan qaaday heesta oo ay soo baxdayna isaga ay soo wacay wuxuu yidhi waa mahadsantahay that's good heestii bal laba kalmadood ma ka xasuustaa laba iyo hal heestu waxay leedahay horta heestu waa duco inkastoo aan music la saarin laakiin hadana bal ma dhima heestu waa duco waxay leedahay markaan ku arka waan ka maqsuudila murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu iga mayrila dhibtan soo mare hooyoy macaan hooyoy macaan bay kusoo gabagabaysaa waa wax aad u qiimo badan waa tahay maad aad baad u mahadsan tahay taasi tii hooyada ahayd dhinaca jacaylka marka loo fiiriyo heestee baad isleedahay oo ugu shidataa heesaha hees aan hadda soo wado la yidhaha ladan waxaana sameeyey orshe nin la yidhaahdo maxamed orshe oo halkan jooga waxaa la yidhaha ladan waxa weeye waxaa soo sameeyey laxankeeda jaajumo nin la yidhaahdo waxayna soo baxaysaa waxay soo baxaysaa wiigan ama wiiga ku xiga waa karti waxaa la yidhaha ladan heeso badan baa soo socda heeso wadaniyaa soo socda heeso badan baa soo socda anigu aan qaadayo mahadow goorma ayaad isugaatay fanaan dadku jecel yihiin inaad ma adigoo heesayo hees macaan oo aad qaaday ama stageka ama meelaha la isugu imaado heesa aad ka qaado mase xafladaha goorma ayaad baraar ku noqotay dadkaada ama ku faraxday ayagoo ku hor jooga oo kugu faraxsan fanaan da'yar hees macaan oo qiimo badan qaadaya taa goorma ayay kaa daantay complimentiga ama macnaha markii aad banaanka marayso dadku waxa ay kula yimaadaan markii aad ka dhaqaaqdo adigu shakhsi waxa tahay nool oo aad fakaraysaa qofka ku leeyin insha Allah heestaadii baan xalay dhageystay oo aan ku raaxaystay waan ka helay marka waad fakaraysaa waxaad leedahay at least maaragtay dadkii macna marka maqsuud ba ku noqotay markii anigu aan aroos ka heesayo ama aan baadhi ka heesayna waxaan dareemi karaa haddii intaad heesto dadku fadhiyaan laakiin haddii dadku inta soo kacaan kula qaadaan heesto kula cayaaraan ayada laftigeeda waa dareen meesha ku jira marka mahad dhinaca fanka hadda inagu waxaanu joognaa maraykanka fanka wuxuu u baahan yahay dhaqaale cid idinku caawiso wax dhaqaala ma jiraan maya waxaas dhinacaas maaragtay annaguna ma weydiisan shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay ma nihin dad iska socdo marxaladda ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto muddana ku soo jirtay ayaan ognahay way jirtaa dowladahan aan ku noolnahay westernka sida Mareykanka oo kale fan ama lacag loogu talagalay fanaaniinta Soomaaliyeed laakiin cilada Soomaaliya ka jirta midda qurbaha ka jirta dadku shacabku ummaddu waa duntana dab haddii hoos looga qabto israacisaa صح marka way jirtaa laakiin annaga fan ahaan hadda markaan arintan annaga iswadna qofkii isaga iswada waa gartay marka mahadow waxaan gelaynaa markaan dhinaca siyaasaddan kula aadaya siyaasadda inkastoo ay fanaan tahay oo inta badan ay fanaaniintu siyaasadda kala wareegaan haddana waxaa la doortay madaxweyne cusub insha Allah Soomaaliya election baa ka dhacay baarlamaan cusub gudoomiye baarlamaan cusub adiga ka fikrad ahaan iyo ka fanaan ahaan sidee ayaad u aragtaa wallahi anigu waxaan u arkaa sidaan u arko ummadda Soomaaliyeed waxa ay gaartay wax aanu muddo ku fakaraynay waa gartay muddo waxaanu ku fakaraynay wixii annaga shisheeye ah oo wanaageena rabana maanta waa u jeedaa waxaa la doortay madaxweyne fiican sidaan anigu u arko waxaa lagu doortay ma fahmaysaa si xaq ah waa gartay waxaanan gaarnay horumar aad u wanaagsan waxaanan ummadda Soomaaliyeed insha Allah ka baryaynaa inay la garab qabtaan okay madaxweynahan hadda la doortay xasan sheekh maxamed ma u hambalyeynaysa adigoo ka faa'iideysanaya barnaamijka Hello Minneapolis aad baan ugu hambalyeynay aniga xasan sheekh maxamed shakhsiyan waa isnaqaanaa waa kulanay aniga oo jooga 1982 waxaan ku kulanay India markuu jaamacad ka dhiganay isagoo jaamacadda masterate-kii raba inuu diyaariyo la fulo ka soo baxay xasan waa qana aad iyo aad baan ugu farxay hawl badan baanan jeclahay in aan la wado waxaan ugu hambaleynayaa sida ummadda Soomaaliyeed ay u dooratay qofkii u qalmay booska waxaad leedahay rajadii aan ka qabay Soomaaliya maanta
waxbaa ka soo ifbaxay miyaad waxaa leedahay ka soo isbaxay waxaa laga yaabaa inaanu dhammaanteen noqono waxaanu ku dhiirigelinayaa in kuwii dibadda jooga iyo kuwa gudaha ku jiraba ay wax la qabtaan ninkan dhallinyarada ah oo u qalma booska booska maanta uu joogo booska maanta uu joogo laakiin mahado hawl adag baa hortaala soo maha horta hawl adag baa hortaala waxaas la yaab leh ah cilada dadku waa arkaan laakiin soomaalidu iyagaa sameeya waa gartay anaa qofka nabarka ku yaala waad arki laakiin nabar aan jirin bay soomaalidu sameeyaan waa gartay marka nabarkaasoo aad leedahay nabarkaas oo aan leeyahay waxaa horta annagana baabi'iyey oo waddankeennii baabi'iyey oo aan la istaagi la'na waa jahligana waxaa ka bilowda qabiilka marka derbiye culus baa hortaagan waa gartay in ay dadku isu tanaasulaan iyaga oo ka fakeraya aayahooda iyo haddii ilaahay kuu roon yahay caruurtooda iyo maatadooda ayaa muhiim ah waa gartay ummadda soomaaliyeed qaarna waa ladan yihiin soomaali magac markii la yidhahdo qaarna waa dhiban yihiin qaarna waa dhiban yihiin qaarka ladanna waxaa ladnaantaas gaarsiiyey dadka ay ka dhasheen qaarka dhibanna waxaa dhibaatada gaarsiiyey dadka ay ka dhasheen walaalkaa kula dhashay waxaa xaq kugu ah inaad la tartanto oo aad kala tartanto dhinaca waxbarashada oo aad kala tartanto dhinaca lacagta oo aad kala tartanto dhinac kasta maxaa yeele adduunku waa competition way marka in maanta muqdisho ay ahaato meel bahalgaleena haddii ilaahay kuu roon yahay hargeysa ama boosaasana ay ahaato meelo dadku ladan yahay oo iskuul laga aado xaq maaha waa gartay kan hargeysa ku noolna dareenkaas inuu qaado oo yidhaahdo dadkaagii weye kan boosaaso ku noolna inuu yidhaahdo oo halkaa gacmaha la isku qabto raas kamboni ilaa raas ceer ummadda soomaaliyeed ay isu timaado oo wax laga maamulay soomaaliya toosay waa gartay daawadayaal halka uu barnaamijkan idinkaga imaanayo waa Sama TV waa barnaamijkii Hello Minneapolis barnaamijkan oo barnaamij cusub oo maanta Sama TV laga bilaabay barnaamijkan waxyaabaha uu ku bixi doono waxaa kamid ah waa hambaliyada salaamaha taaniyada aad u diraysa dhalashada haday noqon lahayd kuwa aroosyada haddaba haddii ay jirto maantay adigoo kaga faa'iideysanay Sama TV inta aan hawada ku jirno barnaamijkan Hello Minneapolis soo wac taleefanka lambarkiisu yahay 612-436-0553 haddii ay jirto cid aroostay oo aad u hambalyeynayso dhalasho aad u hambalyeynayso tahniyada kale aad u hambalyeynayso waa kuu furan yahay Sama TV waxaana marti noogu daawadayaal fannaankeena mahad indhadeero oo maantay halkan weliba hees cusub oo ugu soo talagalay barnaamijka Hello Minneapolis inuu ku furana halkan inooga qaadi doono meel kastoo aad nagala socotaan waxaan idin leeyahay daawadayaal sabti wanaagsan mahad waxaan u malaynayaa hadda cabaar baan hadalkii wadnay dad badan waxay leeyihiin dee fanaan baa meeshii fadhiya awilna dee hadal buu la soo taagan yahay marka bal in yar oo maaragtay heestii maanta aad noogu talagashay oo Hello Minneapolis barnaamijka hay Sama TV aad ku furtay ma jeclaan lahayd inaad dadweynaha u sii deyno sida heesta badan baa waxay leeyihiin awil hadalkan ugu wareerisay waa qaadayna heesta dhiman daawadayaal bal inta aanan heestii u gelin waa ku fahmay khadka taleefanka ayaa la soo galay halo waan ku salaamayaa ku soo dhawow barnaamijka Hello Minneapolis السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاق إيه مقالة أجوكتين ولا لوان كسلامي مقعيق وحال دها حاو بلن حاو بلن ما شاء الله ما هدنا وان سلامي آديات فنانك نقالي أنا قلت هانية وحان درا يا مدحوينها الصومالية ما شاء الله ما شاء الله آديات وفرح سنة هاي بربروان فرح سنة مركا مدحوينها هنبليان لي ومد صومال إنه هنبليان لي هاي كارهان عويل يو برنامج كسمتي فينا آدو ما سنتين ما هدنا دارو آديات مرلبات استحالة كسلامية waxaan jeclaan ka codsaday heesta ah boosaaso waa beled heesta aad u jecelahay heesta ii qaadi karo ay qaado aad iyo aad idin salaamayaa thank you aan aadaan u faraxsanahay dawladda cusub ee waddankeena ka dhalatay xaawo bilan anagana waxaan ku leenahay mar labaad aad baad ugu mahadsan tahay sida aad barnaamijka Sama TV ula soo xiriirtay barnaamijkan waxaa la dhahaa Hello Minneapolis Sama TV ayuu si toos uga bixi doonaa hadda kadib marka haddii taaniyadaaga aroosyada saxaabtaada kulli la socodsiiyo u sheeg insha Allah hadii la haydno aad iyo aad aroos kasta waxa iga fiican dawladda Soomaaliya buu macaan marka ma sha Allah aad u mahadsantahay xaawo bilan fariintaasna waan gaarsiinaynaa madaxweynaha Soomaaliya xaawo bilan u hambalyeynayso annaguna waan u hambalyeynayna madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay ha nooga dhigo kii dalkeena iyo dadkeena anfaca dadkeena walaalayo Soomaalina isu keena Ilaahu ducadaas u aqbal insha Allah taala laakiin mahado waxa jirtay
markii lagu jiray electionka macnaha arrin aad dib iigu soo noqotaa jirtay markii xasan la doortay madaxweyne xasan doorashadii campaignki hadalladii ay ka jeedinayeen baarlamaanka hortiisa xasan waxaa jirtay hadal uu dheeraa musharaxiinta kale hadalkaas ahaa wuxuu yidhi haddii ilaahay khayr ii wado oo dadka Soomaaliyeed aan khayr u wadana ilaahu igu guuleyshiyo igu duceeye haddaan shar u ahayna ilaahu iga qabta xasan maalintii la doortay maalintii ku xigtay aniga horta xasan san ku sheegay aqoon baan u leeyahay oo sidaan adiga ku aqaan u leeyahay madaxweynaha Soomaaliya xasan maalintii la doortay maalintii ku xigtay wuxuu tagay meesha la yiraahdo elgaabta oo noqotay meel iska dad masaakiina ay ku nool yihiin iyagii buu dhex fariistay wuxuu ka codsaday inay u duceeyaan halkaa waxaad ka dareemaysaa dadkii masaakiinta elgaab joogay baa u duceeyay wuxuu yiri noo duceeyay wadankii aniga madaxweyne ka oo ilaahay inuu ila garab qabto idinkuna aad iyo annagaba dhibaatada aanu ka wada baxno ma fahmaysaa marka ducada Allah waa aqbalay hadana macnaha horta sidaan ku sheegay darbiye adag baa xasan hortaagan insha Allah ilaahu fududeeyaan lana ilaahay u fududeeyaan lana annaguna waxaan dhowrkii habeen ugu dambeeyay ku soo jeednaa heeso aanu particularly madaxweyne xasan ugu talagalnay okay waxa dhici doona xaflad weyn oo 22 bisha loo qaban doona madaxweynaha waa taa waa soo noqon doonaa mahad barnaamijka ku guda jirnaa daawadayaal saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waa barnaamijkii Hello Minneapolis Sama TV heestii sir jacayl iyo mahad indha deero maantoona waxa la yiri hadal badan haan ma buuxsho aniga iyo mahad waan idin joognaa cidii su'aal qabta ama fanaanka maantay rabta inay la hadasho Sama TV ayuu dhex fadhiyaa barnaamijka Hello Minneapolis ayuu noo furay daawadayaal waad ku mahadsantiin haddii ay jirto Cabdikariin oo wax telefoon kala Maxamed Cali ama Ismaaciil isoo gudbiya haddii kalena heestii sir jacayl iyo mahad indha deero fanaankeena bal in yar aan ku yaranasano heestii uu noogu talagalay maanta barnaamijka Hello Minneapolis in lagu furo daawadayaal waa barnaamijka Hello Minneapolis iyo mahad indha deero anigu Caawil Nuur Shiraah Ismaaciil Cabdikariin dhamaantiin barnaamijkan oo ka bixi doona Sama TV kala soo xiriir telefoonka lambarkiisu yahay 2295080 barnaamijkan hambaliyada waanu idin wadi doonaa haddii Allah wada ogolaado mahad indha deero iyo heestii sir jacayl iyo Cabdikariin mahad dadkii wada aragtay xiiso badan baa lagu hayaa heesii laga codsadayna kullu waa fiirin doonaa ma isiray jacayl
mayla duulo may geeyay samaado may siday ku yaalo may saxaabatu maayo sara mayla duulo may geeyay samaado may siday ku yaalo salano ukamay sugayo ma isori wayo salan may budagafo may diga salano ukamay sugayo ma isori wayo salan may budagafo siyay dacaro wali may sasabaya sunuyi walaqiyo ma isiyay dacaro wali may sasabaya daawadayaal halka waxa inoogu dhamaaday heestii halkudgeedu ahaa sir jacayl waxaana ku luqeynayay fanaankii caanka ahaa ee mahad indho deero oo maantay barnaamijka Hello Minneapolis daawadayaal marti noogu ah bal marka hore aan qaato khadka taleefanka halo ku soo dhow Sama TV magaalada aad joogtid iyo magacaaga walaal magacayga waxa weeyaan qamar ku soo dhow Sama TV barnaamijkii hambaliyada iyo salaamaha Sama TV way Hello Minneapolis baa la dhahaa marka mahad indho deerana maanta marti buu noo yahay hey Hello Minneapolis waa salaamaya Awil Nuur Shirayo dhamaantiin iyo mahad soo waxaan doonayaa inaan taaniyad halkan ka diro aan u diro arooskii aroosada Safiya Ayub Yusuf iyo Yonis Yasin oo arooskoodu maanta ka dhacayo magaalada Wisconsin especially Baron waa taqaanaa Awil si fiican ma aqaanaa Baron ha soo waxaan kaloo taaniyad u dirayaa maxaan ku yiraahdaa dhammaan walaalahay meel kasta ay joogaan Canaab Luul Aamino Faadina Yaasiin Xirsi dhammaan meel kasta wixii codkayga garanayo i maqlaya especially waxaan taaniyadu dirayaa Canab Xasan Muuse iyo labadeeda ciyaal Saharo iyo Cabdirasaaq oo ku nool magaalada Minneapolis soo ma dhamayn karo dadka haddaan bilaabo waxaan kaloo taaniyad gaar u dirayaa Faadina Ciid Xirsi iyo wiilkeeda Shucayb Abshir oo jooga Minneapolis marka ma dhamayn karo dadka dhan ma dhamayn kare waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قمر aad baad u mahadsantahay anaguna waa kaaga mahad celinaynaa barnaamijka Sama TV Hello Minneapolis maanta sida aad uga qayb qaadatay barnaamijkan daawadayaal waxa uu noo noqon doonaa barnaamij inoo socon doona hadii Allah wada ogolaado hello ha assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة waxaan magacaaga iyo magaalada joogto marka hore magacaygu waxa la yiraahdaa Firdawsi Maxamed Bedel waxaan joogaa Minneapolis haye waxaan hambalyo u dirayaa Sama TV iyo madaxweynaha cusub thank you oo Soomaaliya ka dhashay waxaan kaloo maanta hambalyo u dirayaa aroos xalay ka dhacay magaalada Minneapolis oo ah Zainab Cabdi Ximbil iyo Saleebaan dhammaan reer Beledweyne oo dhan waxay hambalyo u dirayaan reehiiraan arooskaas xalay ka dhacay Minneapolis assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنغونا أروسك إيه أروسدا وأن أسي همبليين إن هدانا بعد Sama TV هيه هسه waxaa iskala xasan diiray nin baa ii keenay muddo hore adigu almost 7 sano 8 sano ka hor waa hees jirtay way waa gartay laakiin macnihii baan ka helay waa gartay waa marxalada kamid ah marxaladaha jira marka imise ku qaateen inad ku sameeysid heesta waa hay muddo igu qaadatay maxaa yeelay heesta markaad horta lagu tumay waa inaad musician ka heshaa magaaladan anaga aan ku noolnahay musicianada ugu yar waa gartay marka waa isla helay waqtigiina waa inaad u heshaa sameynta hees cusub hadaysan ahayn waa inuu lagu garaaca adigana aad la heshaa sidii fanaankii u qaaday inaad adna u qaado dariiqii uu maray aad marto waa gartay laakiin waa hees maaragtay maado raaliga ah khadka telefoonka waa soo bilowday xiisa badan baa lagu hayaa ana ujeeday halo ku soo dhow Sama TV waa barnaamijkii Hello Minneapolis halo salayahay waa la fiican yahay magacaaga iyo magaalada joogtid iyo hadaa cid u hambalyeynayso hadaa rabtid fanaanka mahad indho deer inaad la hadashid kulli way kugu furan tahay ha marka hore Sama TV aad iyo aadan u fiirsada waan jeclahay
thank you very much midda kale fanaanka indho deero aad baan u jeclahay waa gartay markaas intay kala xiriiri karaa ma waxaa la xiriiraysaa fanaanka mase Sama TV fanaanka afjooga looma adeega asaga ka hor fadhiya ها معانا fanaanka website uu leeyahay marina aad baa u mahadsantahay maya waxaad igala soo xiriiri kartaa Facebook mahad indho deero waana mahadsantahay walaal aad baa u mahadsantahay waxaan ku sheegaa waad ka helay haye go ahead waan idin mahadcelinaa Sama TV yarka Cawil adigana aad baad ugu qurxoon tahay TV-ga thank you very much aad baad ugu mahadsantahay adigana maanta cid aan balyanaysa ma jiraan waa tahay nagasta ayaan qaadanaynaa halo ku soo dhaw Sama TV السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقة مقالة جوكتي. مقعاقة وحنا سعدية محجوة من سوا ميانبلز. واحد سلام يا مهد ندير فنانك نقالقة. فنانك هيس مقعد سنكرا. حدوها يها وأفجوك لو ما أديكو أساقي وفرديها. ها فنانك مقعد سنة هوي معان إنه نقاد أما هيستي بوساسو. اوكي هوي معان أما بوساسو. سعدي أدبا وما سنتاي بوساسو إيما ديار سنة لكن هوي معان إن شاء الله هوي معان بلغو قادر. مهد هدي أدبا لغو حسيني يا مقالة منيابلس واقع عدوات أركتها. دادكو إسجعل. واقرتي هلو كسودو Sama TV. Hello. ها كسودو Sama TV مقعاقة مقالة جوكتي. My name is Hamid. I'm 9 years old and I live in Minneapolis. I'm so proud that Somalia got a new president and wow. a new government. Okay, خدك تلفكر ولا وجرا مهد. هلو كسودو Sama TV. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقة مقالة جوكتي. هلو. مقعي حالة سجل. محلو ده؟ مقعي سجل على سنبولن جوجا. أوكي برنامج كهلو منيابلس كسودو. waxaan u dirayaa hambalyo habarintay xaqna Sheekh Axmed iyo dhamaan eheladeyda iyo qaraabadeeda iyo madaxweynaha cusub thank you intaas may kaaga egtaa mas wax kala ku daraysaa idinkana waan salaamaya waa tahay aad u mahadsantahay anagana waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka Sama TV Hello Minneapolis uga qayb qaadatay Hello Minneapolis ku soo dhaw Sama TV Hello. yes ku soo dhaw Sama TV Hashim Alha. maxaa lagu dhahaa Hashim. welcome to Sama TV هي ما هنوصل وعدي. waxaan faraxsanahay Soomaaliya. madaxweynaha cusub. madaxweynaha Soomaaliya ku faraxsan tahay. Ha. waa gartay wax kale oo ku faraxsan tahay ma jiraan. in dawladooda okay. meeqa jirtaa adiga? 10 miyaa jirtaa? Ha. ما شاء الله هاشم waxaan ku leeyahay sida aad madaxweynaha ugu hambalyeynayso annaguna waan ka gaarsiinayna insha Allah waa Hashim yare هاشم maxaa lagu daraa علي يوسف هاشم علي يوسف هاشم علي يوسف oo u hambalyeynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa ka gaarsiinayna insha Allah madaxweyne caruurtii Minneapolis ayaa maanta aad ku salaamaysa waa tahay Hashim waa maasantahay thank you very much waxaan qaadanaynaa khadka telefoonka halo ku soo dhawo barnaamijka Hello Minneapolis halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاقي مقالة جوكتين أمال محمد منيابلس منسوعة maxaa noo soo wacday marka hore ma santiin Sama TV fanaanka waxaan hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed dawladdu curatay ما شاء الله hambalyo Soomaaliya ilaahay loo qabtaana siiyo intaas iga kaaga dhantahay aad iyo aad u maasantay magacaaga marwaad noogu celi Amal Maxamed ما شاء الله waad maasantahay sida aad barnaamijka Hello Minneapolis uga qayb qaadatay waana ka gaarsiinayna hambalyada shaqada aad wadaan wada waxa ay anfaceedo waxa kamid ah wiil yar oo 10 jir markuu ku soo af Soomaaliga kugu la hadlayo dareemayo in dalkiisii hooyo maanta dadku isku yimaadeen oo madaxweyne la doortay waxa way wax aad u fiican way kalka fiican ma hadina deer waad maasantahay dadku marka ay fanaan arkaan iyo TV waxaan u maleynayaa heesa ay rajeynayaan mahad recordingkii hore aad buu u dhibadan yahay marka la yiraahdo hadda dadka hees oo soo socota halkan technology-ga waa isbedelay adigu sidee u aragtaa kuwa hore sida loo duubi jiray kuwan wax badan baa u dhaxeeya maxaa u dhaxan kara malinaysa aaladaha macnaha technology-ga sida aad sheegtay aad bay isu bedelaan waa gartay maanta waxaad helaysaa
mudday qaadan jirtay xataa samaynteeda heesta markii la duubo heestan aad fiirinaysaan Ah. waa riwaayad wey dhowr kaamera lagu duubaya Waa iyadoo gartay. laftigeeda waa fiicneed laakiin waqti bay soo jirtay waa gartay waqti bay soo jirtay marka wixii waa tirtirmayaan maogta laakiin at this moment hadda waqtigan lagu jiro Ah. wax kastaa waa digital waa wax maaragtay aad hadda duubayso hadda helayso ka clear garaysan sidii oo kale adduunku hadda horumar baa laga annagu baa xogaa waxaad moodaa soomaaliya haddaan ha inaan waa tahay maado waqtigii waa iska gaaban yahay waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno heeso ama majaajilooyin adigu ma jirtaa hees aad noo qabanayso waan isleenahay allelehe waan wada qaadan karnaa ama adigu lahow ama fanaan kale ha lahaado codsi adiga xaggaa ka yimi annagu waan helaynaa heestii anigu waxaad waxaan jeclahay inaad iisoo qabataan fanaan aan aada u jeclahay waxaad iisoo qabataan xasan aadan samater okay ama waxaad iisoo qabataan idinkoo raalli iga ah xasan dib iigu dhiga waxaan jeclahay fanaaniinta hadda soo baxday kuwa yar yar Ah. fanaaniinta da'da Ah. yar waa gartay waxaad iisoo qabataan hees layraa garowe oo iskalaaji uu qaaday oo soo baxday 2 weeks ka hor waa gartay waa la helaya sooma Ah. okay waa tahay cabdikariin aan ku codsado heestii garowe iyo iskalaaji uu qaaday waxaa la yidhi 2 wiil keliya ayay jirtaa waa hees da'deedu aad u yar tahay waa hees cusub fanaanka da'da yar oo ka mid ah xidigaha Minnesota ayaa qaaday waa heesta waxa loogu magac daray garowe garowe muxuu jeclaystay muxuu dhashay iskalaaji waa reer garowe waa gartay xamar buu iskuul kaga soo baxay kusoo barbaaray laakiin waa reer garowe Waa aabihii gartay. iyo hooyadii garowe ku nool yihiin waa gartay wax qalada ma leh aniga maanta meel faani haddii la idhihi lahaa waa tahay heestii waa tan garowe daawadayaal waa heestii garowe iyo iskalaaji oo heestan waxaa la yidhi 2 wiil ayay jirtaa waxaana noo codsaday oo heestan mahad ila deero saaxiibkay oo halka ila fadhiya marka heesta waa hees macnaha anigu waxaan jeclahay waxay ka hadlaysaa waa garowe may muusiga codka dariiqa macnaha waa fanaan maaragtay runtii iskalaajina wuxuu ka mid yahay ummadda xidigaha Soomaaliyeed Minnesota maya ummadda Soomaaliyeed indhaha ay ku hayso maxaa Masha yeelay Allah. waxyaalaha fanaanka lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah horta codkiisa sida uu u qaaday iyo laxanka waa gartay siiqada dariiqa loo qaaday heesta Waa gartay. iskalaaji marka wuxuu la soo baxay xirfad waa gartay dheer xirfadaas oo ah isagaa samaysta hadda waaw abwaan buu isu bedelay maya miraha waa la Isagaa sameeyaa saara. laakiin sida loo qaadayaa ka adag mira samaynta oo laxanka wey laxanka laxanka marka isagaa samaysta waa gartay waxaa jirta heesa aad u fara badan oo iskalaaji uu sameeyey hadda haddii aad google garayso waad arkaysaa markaad aragto laxankii iyo isagii oo ku luuqeynaya Ha. waa wax taalanti ah waa gartay aad macnaha anigu haddaan isku dayo dhib bay igu noqonaysaa Marka, laakiin isaga ilaahay waa u fududeeyey inuu heestii samaysto ha maasha allah iskalaaji waa fanaan daayar oo dadku aad u jecel yihiin isaga laf ahaantiisa waxaan jeclaanaynaa inaan barnaamijkan halo minneapolis Ah, oo isna live u imaado insha allah daawadayaal halkaad kala socotaan barnaamijkan waa sama t v Somali American Media waxaad kaloo barnaamijkan hambalyada iyo salaamaha aad ku soo diri kartaa adigoo wuxuu u baxayaa bishii hal mar ayuu baxayaa insha allah tacaala billahi alkarim sidaan filayo marka barnaamijkan haddii aad rabto hambalyada ah inaad cid hambalyo u dirto waxaad isticmaalaysaa emailkayga oo ah info@somaliamericanmedia.org waa info@somaliamericanmedia.org waxaad ku soo qoraysaa cidda aad u hambalyeynayso inta qof oo hambalyeynaysa waxaan kaloo rabaa aan kaa dhex galo mahadina deer haye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ku nool magaalooyinka mataanaha iyo nawaaxigeeda ah in aanu qaban doono xaflad aad u ballaaran oo ah soo dhoweynta madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud yaa waxaan u sameynaynaa xaflad 22-ka idinka laftigiina waxaan idinka codsanaynaa som tv inaad noo timaadaan nagala soo qayb gashaan waxaan u malaynayaa shakhsi Soomaaliya oo ka maqnaanaya male xafladaasna waxaa soo qaban qaabiyey dhalinyaro isu tagtay oo rag iyo dumarba ah annagoo ku boorigelinayno ummadda Soomaaliyeed inaan shaqada aanu la qabanayno madaxweynaha iyo dowladdan cusub oo ka baxday kumeel gaarka ah oo dowlad rasmi oo federaal ah in haddii qaar noqon karaan haddii qaar halkan shaqada ka wadi karaan inaanu horta marka ugu horeyna ku niraahno waa kugu faraxsanahay
ilaahna kugu garab galo waa tahay maadaama aad baad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkii Sama TV maantay waa kugu faraxsan halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka labada inta ku kulmi doono waa anigu Cawil Mushra Cabdikariim Maxamed Ciise oo engineer madaxa Sama TV ah Maxamed Ciise Cali oo isna director Sama TV ah oo isla barnaamijkan gacan ka geystay Maxamed Xuseen Timir maanta waa naga maqan yahay laakiin barnaamijka gacan ayuu ka geystay barnaamijkan waxa idin la socodsiinayay waa Cawil Mushra dhamaantayo barnaamijka Minneapolis inta ayaan kusoo gabagabeynay heestii Garowe Iskalaaji mahad indha deero aniga waxaan idin leenahay waliba farxiyana waa joogtaa farxi Jordan baa laftigeeda joogta dhamaantiin nabadgelyo